cabdiqaadir aadan cali waxa uu ka mid yahay dadka reer guraaga ee ku nool deegaanka miyiga magaalada Wadaamago. cabdiqaadir waxa uu warbixin kooban ka siiyay telefishinka Bulsha TV sheeko jacayl oo dhex martay isaga iyo in lagu magacaabo Ismahaan Maxamed Cali isla markaana ay ku wada noolaayeen deegaanka miyiga magaalada Wadaamago ee gobolka Saraar. cabdiqaadir waxaa nooga warantaa sheekadu sida ay ku dhacday ee idin dhex martay adiga iyo inantan Ismahaan. yaasiin aad iyo aad baan idin mahadinayaa bahdiina Bulsha TV ee maanta igu soo booqatay deegaankan qasabkiiran ka sheekayn doono si wacan iyo sida ay u dhacday inanta iyo aniga qisadan dhex martay. anigu niyow waxaan ahaa reer miyiga kadib inanta waxaan ahayn dad bulsho wada socota oo meel wada guurta oo had iyo goor dhaanka iyo xoolaha iyo baan wada aroori jirnay. kabacdi inantii waxaa aad baan inantii u jeclaaday, inantii waanu sheekaysanay. inantii markii iyadoo arrinkayga iska dhowdhow yahay inantii iyo anigii waxaana soo dhex galay dad baana soo dhex galay. adigu inantii waa laygu diray, inantii kamaan harin anigoo sidii u daba socda ayaa waxaa yimi oo xagga qurbaha aad ugu raagay. hadii goor wada tayaseen dadku waxay isfaamiliyaan nin oday oo aad u da'weyno faamiligoodiiba xagga dibadda ka yimi. adigu malaha gobolka Togdheer iyo meel buu soo degay. waxa loo sheegay wixii odaygiina bandoonaya waxa la ninkii hebel miyiga deganaa ee isku faamiliga ayaa inan haya. ninkii uu yimi inantii adigu reerkii adigu lama hadlin ku nin buu hadaa adigu lacag buu isticmaalay. adigu inantii baa la siiyay ninkii inantuna waa inantaan jecel ninka weyne da'da oo iska raqa oo lacag siiyay ayay inantii kabacdi waxa dhacday in inantii maalmaha ka mid ah anigu geelayga iskala joogo ay dabatan waxay ku tiwaayaa waa bixiyay bered carabka yimalis toddobaadka soo socdana Dubai buu ka imanayaayo wax lagu aroosiyay anigu ma garanayo balaashiga hotel. inantii markii ay sheekada ii sheegtay habeenkii ayaa hadii goor marka galsuuga la soo xareeyo dab u shitaa anigu aad u fikiray dab u fadhiistay. marka waxaan niyadeyda waxaan ka helay inaan maaso aan halka ka alifay aniga iyo Ismahaan jacaylkan dhex maray iyo halka ay ku dambeysay. anigoo maasadii bilaabaya maasada waxa la markii hore magaceeda waxa la murugo. waxaan iri haddaan gabayga eelku kiciyo arami ka keenin amaan olol jacayl iyo xanuun kugu igbaaraynin afkun baad ka sheegtay tixu arar ma yeeshan. isma oran ila iska shiday baan wax la arkayna isma oran albaabkaad xidhay yaa aayar loo furiyo isma oran atoor baa libaax ka ilka weynaana isma oran qofaan ay ku jirin wuu ambanayaa isma oran adoo ooman baad webi ag taagnaana isma oran axdiga tii gashay yaan oofin garanayna isma oran Ismahaan bani kala ku arki doontaa. afarta araariga dheh iyo erayadeedii ujeedada halkii aan la rabo la arki doonay baan inantan jeclaa aan wax badan ku ag wareegayay anfacada yartaan uga go'ay aan eegi kari waayay inantan aleelkii hurdada alalayaan toosay odayba halkaygii galay oo lagu alhuumay kii laba usbuuc joogin buu soo ardaa dhigay afka kama hadline abu bidaa reerkii ku asqay أبو بدار غيرك العقب استعمال قبل لا شاكستي ما هي العقب يسته هذه كده أنا العقب ما هي هلا راعة هذا العقب ما يسته حتى كوه هي هلا راعة هلا راعة أفكر كمان هذين أبو بدار غيرك كويس طيب إن يرجورتي لقيت شوقي بين أنت سيانة يدنا ميجيني نخسي وعروسين أنا بأواري كهاري قولي أبارة وركوتالا يعيل أنا يجو أبو رينا سيدي أيرجيل oo kareeb lagu ulaynayo oo eedayga ilmihii ugu jiray laga afduubayo waxa la ogaamaya arami weeyaan inna ooridiisii oo la dhacay kama adkaysteen inanta intaas oo sanaan weejoogno xaq lama xisaabiyay isku odbatay marka inaan qabo oo kale ayaaba ka soo qaado waxaan inna ooridiisii oo la dhacay kama adkaysteen
ها أفرتا أراري قد هي إريا ذي وجيدة هالكي أن لا ربو لا أركي دوني جيران ساعة كسوقات يساند أولو ليس امتحان درتيد كولان وقالو أنا تشلقوي أتاق يرفيس كولان قطو أن شلبها أستو أول تبع أرى اللي قطعي وبحي باريسي أروس تاني وعلينيا إن أنت في عنيدي هدي أبها إذا كريقو أن أرد كسيتشو إن أنت أضيقا مروان كالإريا يبل أقادة سمح وأتورك سقوي ويسيروا دبك وعلون عدادي قراك يالميرو قاض الله قبيل داك يالميرو قاض الله مركا دبك العقوي دي وحسي آكئون دونو أكورا قرقو يال وكيجيل lagu raacay halka waxaan xitaa maagayo aan wax dadkii ugu diray waxa la afarta araariga dhahiyeerayadaydi ujeedada halka la rabo la arki doono aad iyo aad kuwii nabcay sarki doonay intay xun ku sheegi jiray isarki doonay agnaanimo kuwii ugu daniyay isarki doonay waxa la inanta ninkan reermiyi agnaanka maxaa ku falaysaa ninka lacagta la baan ku haynaa ha agnaanimo kuwii ugu daniyay isarki doonay kuwii odayga koolkoolin jiray isarki doonay Suuriyada ragii alamsaday isarki doonay od ka islaamiga u jiray isarki doonay od ka waxa leeyaha muqmadan xariya waa muqmadii xariya oo ha od ka islaamiga u jiray isarki doonay areebiyo markuu aadiyo dib u afraaray eribodka kiigay isarki doonay bal ogaada san wuxuu ajooraysan alaabtii ku aroosanayay Dubai u doontay taxigi qaaday baan macluuha jabiyaasiino taxigi areebiyo markuu aadiyo dib u afraaray eribodka kiigay isagana isarki doonay yaasiino waa ku yar sheeka dhaafay istaanta hooyadeedu aad u qoraydo ka baqi jiray qisadii aniga iyo jacaylkiina dhex maray aniga ismaan yaasiino weli dee aakana ma qaadano nin baa igu yiri war aakana qaadan in arrinka meel kale nina wuxuu igu yiri wallahi hadii reer hebelne naagta la inaga qabo inoo ku dagaalana mooyaan ka harimayno tabadeetana burcaan soo galay anigu aafir baash waxaan arkay dee ninkan raqda ah ee lagu sido gaariga ee waxde la iska celiyo baan ahayn waxaan dee noo kala maqana waa gabadh sheekana dhaxmar hal kelmad baan isku qanciyo halka waxaan inta ninkii soo weegay yani wallahi nin ragaabad caabi karta la iska celiyaa adduunyada la xiriirka inta kugu cadhow waxa salay sheegay gabadhii iyo odaygii in oday kharash badan ka baxay laakiin gabadhii anigu xagan ka hayay hal habad la raaci jiray kharash ma haynay odayguna dee lacag buu isticmaalay waxa la sheegay inay gabadhiiba odaygii ka carartayo reerkii uu dumay ayaa la sheegay sidan jacaylka ay dhaxmartay Cabdiqaadir Aadan Cali iyo Ismahaan Maxamed Cali waxa idila socodsiinaya anigoo wariyaasiin baal dahaba Bulsha TV magaalada Caynab.